madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xafiiskiisa kulanka oo kula qaatay safiirka cusub ee dawladda Denmark ay u soo magacowday Soomaaliya kadib ayuu waraqihiisa aqoonsiga ee safiirnimo ka gudoomay sidoo kale inta uu socday kulanka ayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo safiirka dawladda Denmark ay u soo magacowday Soomaaliya Grid Agarty Anderson waxay ka wada hadleen xiriirka labada dawladood iyo ballaarinta taageerada ay Soomaaliya ugu talagashay dawladda Denmark iyadoo kulanka ay ka qayb gashay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yusuf Xaaji Aadan kulanka iyo gudoonka waraaqaha aqoonsiga safiirnimo ee safiirka Denmark ee Soomaaliya kadib ayaa warbaahinta qaranka waxa la hadashay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yusuf Xaaji Aadan waxayna sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay sida dawladda Denmark ay diyaar ugu tahay caawimaadda Soomaaliya iyadoo safiirkooda ka howlgalaya safaaradda Denmark ee Soomaaliyana uu maanta madaxweynaha Soomaaliya waraqihiisa aqoonsiga ka gudoomay saad la socotaan maanta safiirkii Denmark baa dhiibay warqadihiisa aqoonsiga madaxweynaha u dhiibay Denmark waa dal saaxiib ah waa dalka ku soo qulqulaya ayuu ka mid yahay waxa weeye wax lagu farxo waxa weeye aaminaad la aaminay dalka waxay kaloo inaga caawiyaan Denmark wax mashaariic badan oo ay ka mid yihiin kuwa tacliinta kuwa nabadgelyada European Union kana waa ka qayb haddana gaarna way inoo caawiyaan aad baan ugu faraxsanahay aadna waa u soo dhaweynaynaa safiirka sidoo kale safiirka dawladda Denmark ee Soomaaliya u soo magacowday Grid Agarty Anderson ayaa isagana warbaahinta qaranka la hadlay waxa uu tilmaamay in kulanka madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud uu la qaatay loogu gudoomay waraqihiisa safiirnimo dhanka kalena waxa uu ka hadlay caawimaadda joogtada ah ee Soomaaliya ay siiyaan ee dhinacyada ammaanka waxbarashada iyo dhismaha We had an excellent meeting with the president. It was a pleasure for me to hand over the letter accrediting me as ambassador to Somalia, a letter from the Queen of Denmark to the President accrediting me as ambassador here. kulanka madaxweynaha aan la qaatay waxa laga aqbalay oo laga ogolaaday waraaqihii safiirnimo ee boqorada wadanka Denmark ay igu soo dirtay Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya annaga waxaan ka caawinaa dhinacyo badan Amazon ayaan taageero buuxda siinaa sidoo kale taas waxay qayb ka ahaan doontaa ammaanka waxa ka mid ah waxyaabaha aan sida weyn uga taageerno Soomaaliya waxbarashada oo sanadihii si weyn ugu soo kobcisay Soomaaliya barnaamijka aada dugsiyada oo ah barnaamij si weyn ay dawladda federaalka uga hirgelisay gobolada dalka Soomaaliya ayaan doonaynaa in aan si joogto ah u caawino waxa kaloo jiri doona lacag badan oo Soomaaliya aan ugu talagalnay in aan ugu filino mashaariic horumarineed taasi waxay ka mid noqon doontaa caawimaadda joogtada ah ee aan dalkan Soomaaliya ugu talagalnay and we as Denmark is also supporting AMISOM. What is important for me is the educational sector. bilowga sanadkan ilaa iyo dhamaadkiisa ayaa dalalka caalamka waxay si isdaba joog ah u soo dirayeen safiiradooda ka howlgalaya safaradaha ay halkan ka furanayaan taasi oo muujinaysa sida uu u sii xoogeysanayo kalsoonida caalamka uu ku qabo dawladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo dawladda Denmark ay qayb ka tahay wadamada sida joogtada u taageera Soomaaliya waxa ummadda Soomaaliyeed ogeysiinayna meel kasta ay dunida ka joogto inaan idin hayno web design raqiis ah web hosting raqiis ah qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliya oo danaynaya ama shirkad leh ama danaynaya inuu internetka ka sameeyo lacag waxa shirkadda www.disoweb.com idin design gareynaysa sistemo aad ku heli kartiin ama aad ku kasban kartiin inaad ka sameeydiin lacag sida Google-ka iyo Yahoo-ga iyo Bingo iyo meel kale oo badan waxaan kale ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynaa inaan idin sameey doono mobile apps oo ah system cusub oo mobilada sida Android iyo abiska maan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan kale ugu bishaareynaa inaan u hayno qofkii danaynayo in uu helo wax la dhaho SEO oo danaynayo inuu search engine-ka yimaado Google-ka Yahoo iyo Bingo markii laga raadinayo alaabaadkiisa oo kale sida Soomaaliya oo kaleeto ama Somali shop inaan number 1 u keeni karno waxaan kale ugu bishaareynaa dadka shirkadaha Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook-ga inaan keeni karno numberka koobaad ama aan heli karno ilaa 20,000 oo like ah oo dadku follow gareynayaan marka fadlan hadii aad danaynaysid nala soo xiriir wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh